soo qabtay xibintii maadi madadaal alcadaala ku wareejinaya soo inoogu soo jeediyo waxaan gudagalaynaa sheekadeena nin waalan oo hadda ka hor qashin wadada ka aruurin jiray waxa uu yimid nin cabtooy ah waxa uu yidhi saxaw maanta jawiga ay qasanay ma habeen miya ma Soomaali jawiga ay qasanay habeen miya ma Soomaali waa walaal xariifkii waan la wuxuu dhahay أنا ماشي مع بعض بايع ضدك هارو ضدنا ويدي أيوة وأنا جيت عشان كذا أنت تكتب بكل بدانا وحيدين كتجي جالس إذا يجينا بتقول يوم وهذاك إما كنا وحان نيسو قدنا كبير وأنا وما قعدنا مجاجلة إلى قصل وحصل جدا دون السهر عبد الله الشيخ كذا ما أنت عندي نيسو جدينا على ماذا قصلة عندي ذي القصلة ninbaa maalin ka baxsaday xarunta dadka waalan lagu daweeyo hal maalin markuu maqnaa ayuu dib u soo laabtay albaabka xarunta ayuu soo garaacay markaasuu nimankii meesha ka shaqaynaya ku dhahay qolka lixaad ninkii ku jiray ma joogaa hala soo fiiriyo nimankii qolkii bay aadeen wayna ka soo waayeen waxayna ku dhaheen war ninkaasi ma joogo ee wuu baxsaday ninkii waanlaa intuu qoslay buu dhahay waa aniga inaan baxsaday ayaan hubsanayay waxaan filayaa sheeko aad u qosol badan ee xiiso badan kuwa kale ka xiiso badan idin diyaarinayna oo idin hayna marka waxaan diidaynaa in hal mar idin sheegno toddobaadka dambe aan noo barana haddaba barnaamijkii saxaafadda iyo saxafiyiinta alyaasir ee arigu isniin aad ugu barateen oo uu soo saaray ustaad maxamed sheekh usmaan ustaad lafoole oo halkan idinkaga tabayaan iyo garaad abdiwaaxid macalin ibraahim haliyeyada halkan idinkaga muuqdaan ay ka qayb qaateen aan halkaasi kusoo gabagabeyn doonaa tan iyo kulan dambe waa baadi saxaafadda idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo inta diinteena tartamadan tabinaa